بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنت صباح وناكسن ميلك استوات كل شوكتان الدوك الدعاء الذي ساء سونو دوادا إنه شهر تنقو هذا اللفت. فيديو كان قف كستوى الصومالية هلقي قارسيو وديك صومالية كتشرو الصومالية وينو فيديو كانوا قاراوي. وعليكم السلام سعود الدوادة. خضر إبراهيم نادر. وعليكم السلام سعود ونادر. فيديو كان waxaan u soo duubay ama aan u duubayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay kala joogaan. marka waxaan idinkana idinka codsanayaa inaad wada gaarsiisaan qof kasta oo Soomaaliya kulleen wax lala yaaba ama wax laga yaqiiqsooda ama wax karaamad darro ama wax sharaf darro qof diin leh oo dhaqan leh oo nasabiyad leh inuu ku farxi karayo qof Soomaaliyeed oo without reason ku dhintay oo sabab la'aan ku dhintay oo xitaa wax allaale iyo wax loo dilay aan la garanaynin oo xitaa macna allaale iyo macna lagu sifaynayo. imika haddii la weydiiyo dadkii waxaan geystay la war maxaad qofkan ku dishin aanay odhanaynin sababtaasaanu ku dilay oo aan waxba galabsanin oo aan cid wax u geysanin qofka ku farxaya ama qof intuu ciwaankiisa feeg samaysto masabidaya kaama qofka masabiday ee qofka magaciisa soo samaystay iyo kaa dadka qarxiye waa same, waa isku mid, waa isku aragti, waayo waxba isma dhaamaan. war markaad ciwaankayga samaysanaysid cabdiraxmaan soolow ee aad ummadda Soomaaliyeed doonaysid inaad ku tiraadid ninka la yidhaahdo injineer Amiir ayaa Soomaali ku farxay geeridooda. war aniga ma adigoo kalaad imooday? war aniga ma adigoo kale damiir laawabaad imooday? war aniga ma adigoo kale oo calooshiisa u shaqaystabaad imooday? war aniga ma waxaad imooday qof sidaada oo kale oo had iyo jeeraale ka shaqeeya dhiigga ummadda Soomaaliyeed? war anigu ma ihi mana noqon karo, igamana suurowdo. soola ninka la yidhaahdo facebookayga aniga Muuse Biixi baa ii saaran. hadda soomaad garanin laba magac baan social media isticmaala, cid walba waa taqaana. waa magacan iminka aan kaala hadlayo iyo magaca la yidhaahdo injineer Amiir Karbaash. weli intaan dunida ku noolaa ee ilaahay cimrigayga intaan leegaysiiyey igu wallaahi igu billaahi igu tallaahi ubad baan leeyahay oo guri buuxaan ahay oo aabba dhisan baan ahay inaanan noloshay Soomaali aan afka ka maaga mooyaane inaanan nolosha ku farxin qof Soomaaliya dhiiggiisa. laakiin adiga waxay kaa tahay ninkani dowladda Soomaaliya u necab yahay. yes I did. dowladda Soomaaliya waa necabahay. waa dowlad dhiigyacaba, waa wada dhiigyacab, waa dad shacabka xasuuqay, waa dad ummadda islaamka baabiyey. anaa imika ku leh dowladda Soomaaliyeed waa necabahay. adduunka ilaahay wuxuu u soo saaro waxaan u necabahay calanka Soomaaliya. waxaan ka sii necabahay oo aan ka sii necabahay kuwa xukuma. laakiin dadka Soomaaliyeed
مساكين دباتيسن صدن كسنة دباتة كسعتي هبينكم أفرحين ساعدكم أفرحين ميلتكم أفرحين سولو وهذا السماء عوان كان فيقا إلا وهذه قولة جرب لما كان عوانته هوية اسكاد انته مانو والبالا قرحنا ايه ادارو نماذا كوبا بيسانة ما انت فرماجية خير اسقبصدان المقالة بدين عقوم ايسان عوانتها بادا قوينها نوشاكتا ويا قوينها بادا فيسبوك على قري او كوبيا ايات سمايسات waxaad soo dhigtay sawirkii Somaliland madaxweynaha Somaliland oo xariga ka jaraya wadadii koridorka iyo qaraxii Muqdisho علشان adigoo uga jeeda inaad ummadda Soomaaliyeed aad ku tiraahdo laba nin oo reer Somaliland oo ninna siyaasi yahay ninna social media ka hadlo ayaa waxaan sameeyay war cala guray kama suurowdo سعودي لمن كان هوية بابا ستين إلا دارون ما دينتو واحد انت واهوي واحد قرحسان واهوي واحد مانوال بربتان بابيسان واهوي عيل إيا عراء أدو قبتان بادو الله يسان عيل إيا عراء أدو قبتان أي أدو الله يسان سومات قرانين أنيقا هوري أي وحنا إيه سومرين عوانا دا يدو الله سمايستي هبل اللقاء عايي اللهم صل على من عوانا ذا الله سماستي oo inta dumar lala hadlay la qaawiyay oo dabatan screenshot laga soo qaaday wax maanta igu cusub aniga maaha wax maanta igu cusub maaha laakiin Soomaalidu waa cawaan waa Soomaaliyo dhan baa igu jirta xalay video ma soo duubay aan leeyahay qoraalka markii la ii soo diray taageerayaashadu ii soo direen ayaan video soo duubay waxaan ila xalay أنا قرأ حد عيبة وحقيقها حبينك حالتها صور لي صدري وصور كان محوية يا قرح كفر أحسن مركبا رادين قوي مركبا باريس قوي مقدوش قال كان كقرح داد ميد على شيء وريتي إلهي بيا بسوكي كان وان دميرك ويسين واي إن الأمس وانا كيسين واي وان وضي وان ايغي يعني قف ميدو لقاضي يورد عيا عن بلاس انو سوق لينين قاركون قربا حيا هالكي يوغو فرديا يعني ليابا يقول كو ذهب انما كليب يرسول دوبيتو 2 دقيقة ملكانا دبا انو يدين شاقيا ورانيغا قف كستا او سوماليا ايغو جرا فيسبوكيga aniga Soomaalinimo markay noqoto Soomaali baan dhiigaygu waa Soomaali dadnimadaydu waa Soomaali diinteedu waa Islaam qof Islaam baanahay qof Islaam oo aan ku farxin qof Islaam dhiigiisa anigu dadka waa maaga wax allaaliya wixii qarankayga ka hor yimaada waan maaga waan iska celiyaa meel baan sura cali guraanigu iigu jira aniga ayuu iigu jira aniga awalkiisa galay deeg ana awalkiisa galay aniga eegay waxba kuma jiraan ma qori karo qof insaan oo damiir leh oo ilaahay uumay oo aan u malaynayo inuu damiir leeyahay aan u malaynayo inuu dadnimo leeyahay aan u malaynayo inuu mar uu Soomaali noqday inuu waxa soo kala qori karayo war markaan hooyo geerideeda ku farxo war markaan wiil yar oo Soomaaliyeed geeridiisa ku farxayo war marka qof waan waxba galabsan aan geeridiisa ku farxayo anu maxaan ahay marka maxaan ahay de ma waxa idin la tahay inaad jeedin karaysaan ummadda Soomaaliyeed oo aad ku jeedin kartaan amiir علشان إما كقريحي دعي لما هذا الهيو وحلا هذا الهيو إنجنير أمير وحاومدي الصوماليات مالك سودريسا إنجنير أمير أو كفر حي قرح الصوماليا وركم فرح سني والله ما أنا كفر حين وبالله كفر حين وطلعي ديجينا كفر حين وأنا يدعي كرين يعني إنك ما تيجي داري إسا قدر تيلي عبد الرحمن صولان نك الله يراه واتشاتشوس
jaajuus wuxuu ku yahay waayo dawladda dhan isaga igu haray wixii kale dhan waan soo dhameeyay allaale iyo wixii kale ee dawladda dhiigiyacab farmaajo oo adeerkii siyaad barre waddadiisii qaaday oo aarsanaya oo ummadda Soomaaliyeed ka aarsanaya oo waliba reerka hawiye ka aarsanaya war waxa laga joogaa 19 saacadood baa laga joogaa imika intii qarax u dhacay war xasan sheekh maxamuud baa la arkay oo dhiig shubaya war ummadii Soomaaliyeed oo isu soo baxday baa la arkaya war farmaajo ma hadla war ma tacsiyaday war ma ka danqaday war ma ka xumaaday war ma isku dayay xitaa inuu dhakhtarka la hadlo oo yiraahdo war dadka dhiigga loo raadiyo isku muday muusa samaynin war waxa la dilaa waa hawiyana anigu ila dhashay soolow adiga kulamu dhalanin anu in adeerkay yahay Soomaad garanin adigu aldaaro maalinba qabiil baad sheegatay oo garac baa tahay garac Soomaad garanin garac baa tahay maalinba qabiil sheegtay marka daaro sheegtay la daaroodka furan oo la galaaye annagana lama soo galo hawiyana lama galo Soomaad garanin waxaan anigu ku sheegaya hawiye dhiigiisu waa dhiigayga muqdisho waa magaaladaydii dadkayga ku nool tolkayba ku nool waxa dhintaana waa dadkayga hawiye aniga waa walaalkay geeridiisana kuma farxo Soomaad fahmin laakiin waxaad hawiye uga dhigaysaa inaan ahay anigoo amiira inaan dhiigooda ku farxayo war habeen kuma farxayo anigu laakiin ninka ku faraxsani waa adiga ninka fake maanta wax allaaleeyo wax la sameeyo ciwaan buga oo Facebook dhex yaala soolay ninka sameeyo waa adiga aniga Facebookayga 1800 oo jeer baad taagtay ma jabsan kartid waayo anigu nin wax bartay baana waayo anigu nin ka cilmi badan baana waayo anigu nin ka aqoon badan baanahay daahir calasow dawladda holan baa ilaalisa Facebookiisa 10,000 oo jeer ayaan haarka ku sameeyay an aabihi kuwas daahir calasow isagoo hawiye kala guraya ma fahanti ninka islaamiyay ee daahir calasow ka dhigay inuu hal meel ku adkaysto waa adiga ma aha wariya Soomaad garanin daahir calasowna dawladda holan baa Facebookiisa haysta waliba niman bilaysta baa haya oo yiri waa la dilaa oo la soo hanjaba ee gacanta ku hayo furo oo ilaaliya midka labaad ee ku badbaadana waxa weeye magaca waaga cusub weeye magaca uu ku badbaadaa Soomaad garanin laakiin adigu maxaad ka shaqaysaa waxaad ka shaqaysaa ummadda Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed sida aad u kala diri lahayd war walaalaanu nahay walaalo laakiin waxaanu ku kala tagnay dawladnimo war aniga inanka hawiye wuu ila dhashay adiga sakulamu dhalinin waa dhiigayga adiga dhiigaaga maaha war yaa wiilka caawa maydka ahay anigu iga dhinta adiga kaama dhiman adigu ka dilay baa tahay adigu ka dilay ayaa tahay Soomaad garanin ama adiga ha ahaado ama dabcasar ha ahaado ama daahir calasow ha ahaado saddexdiinaba horta dabcasar iyo daahir calasow iyaga bar hore ka takhalus adigana nawba ka takhalusaya waxaad ugu tiri ma aqaana baa tiri nabruudkan hadda eeg waad iigu jirtaa oo waad i daawataa oo saacad walbaad video kasta aan soo duuba aad la socotaa maxaad dadka haddaanad munaafiq ahayn oo aanad ahlu naar ahayn maxaad u odhan weyda injineer amiir waan aqaanaa haddaanad adigu samaynin oo aanad adigu waxaan oo dhan ka dambaynin oo faylku iigu jiraayo isaga maaha ta kale sawirkaad soo saaratay iyo sawirka maanta aniga Facebookayga ii saaran waa laba kala fog ciwaankan aad imika aniga ii sheegayso waxaanad adigu samaysay si aanan u aragna blog baad i saartay markaad ciwaanka samaysay blog baad i saartay waa la ii soo diraa blog buu saaran yahay Soomaad fahmin waan ku dacweeyay waan baaray ilaa xalay kamaan seexanin isla xalay waxaan ogaaday soola inaad tahay ninka waxaan sameeyay ee ciwaankan sameeyay ee ka dambeeyay ee arrintan oo dhan dhigay ma waxa ay kula tahay dhiigga shacabka Soomaaliyeed inaad ku burburin kartid amiir ma waxa ay kula tahay
dhiigga shacabka soomaaliyeed inaad ka dhigi kartid inaan anigu ahay nin ku farxa dhiigga ummadda soomaaliyeed war ma ihi mana noqon damiirkaana malihi anigu soomaali baana hawiyana waa walaaladay kuwa 30 sano dhibaatada haysataana waa hawiye ee daarood maaha kuwa dhinta waa hawiye ee daarood maaha kuwa la qarxiya waa hawiye ee daarood maaha hawiyana xaq uma yeelan xamar baa tiraadaan ummadda runta u sheega daaroodow idinkaa dila ummaddan daaroodow idinkaa hawiye baabiiyey walaagooda walaalnimadooda nasabiyadooda soomaali jacaylka ayaad ku baabiiseen soomaali oo aad hawiye ku baabiiseen oo aad hawiye ku xasuuqdeen oo aad hawiye nabad ugu diideen yaa dila hawiye waa Fahad Yaasiin iyo muumin baad u dirtaan yaa baabiya Fahad Yaasiin iyo muumin baabiya yaa qarxiya Fahad Yaasiin iyo farmaajo iyo muumin baa qarxiya runta hadday ku dhibayso aniga amiir baa la yiraahdaa runtana kama baydho soomaad garanin damiirkayguna ima siiyo dhig Soomaaliyeed baad sheegaysaa inaan ku farxee qof Soomaaliyeed inuu qof ajnabiya wax ka sheego ama waaf laga dayo nin loola iman kara anigu ma yihi magarad waxaad ugu tiri waa nin soo taariibay oo Soomaali ku jooga Yurub baad tiri anigu haa xiniyahaygaan dugsaday xiniyahaygaan Yurub ku imi maantana nin Yurubiyaana baan ahay baasaboorka aad sidata mid ka quwad badan oo casbaan sita soomaad garanin laakiin adigu walaasha oo nin Jamaican qaba ayaa ku keentay markii dambana islaam kubadu ka soo dhacday oo Ingiriisa oo sirkhaamada oo isbitaalka waalida ku jirta ayaad isku qaaday si aad sharciga u qaadato markii sharciga lagu diiday islaantii ilaahay meel buu kuugu dhuftayo inaan yar baad ka dhashay haddii aanad la karoona ahayn oo aan lagu dubaynin markii ilmuhu ku dhashay maxaad kale u guursan weydi maxaad ilmo kale u dhali weydi warxiniyahaad aniga ii sheegaysa anigu Soomaali baan ahay yes baasaboorkayga Soomaali baan laakiin Soomaaliga ahaydi isweydiin ma qofan Soomaali ahayn baa jiray Soomaali baan ahay am Somalilander ma fahanti anigu Somalilander baan ahay laakiin waxaan ahay ninkaa karti badan kaa xiniya badan kaana fariidsan kaana dadnimo badan kaana deeq badan kaana waxtar badan baan ahay anigu qof Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waa walaalkay waa in adeerkay waa dhiigay laakiin anigu waxaan nacabahay calanka hawiye lagu baabiinayo ee isaaq lagu xasuuqay ee maantana hawiye lagu xasuuqayo ee hawiye garan laayay calankan dhiigyacabka iska roga oo hawiye intaad fadhiga ka kacdaan daarood war shalay baad siyaad barre iska rideen war shalay baad siyaad barre la dagaalanteen war mareexaan baad la dagaalanteen war daarood baa hawiye idin keenay xabashi war daarood baa kuukuuye idin keenay war daarood baa badiinii bixiyey war daarood baa dhulkiinii iibsaday war xaggaad u socotaan hawiyow ilaasa goormad unugu Soomaali nahay unugu Soomaali halle waaye unugu digigigigig waa geeri socota waa tacsi socota waa mayd socda waa qarax socda waa baaba iyo halaag socda war ma ka socda meel kale kama socda meel kale waxa ka socda ina yaroo la kufsaday waa dheregta ina yaroo la kufsaday waa dheregta ina yaroo la kufsaday waa nabadda ina yaroo la kufsaday yacni halka ay ka socdaan dhulka daaroodka kibirka iyo fadhadhaqda iyo Allahumma salli ala Muhammad caruur kufsiga iyo waxa weeye qaraxya baabiinta qaraxyadii maalintii dhawata cadaada lagu qabtay baabuurtii ee Puntland laga raray soo kuwii ka dambeeyay Muqdisho galay maaha kuwa xalayta wax qarxiyay soo maaha soo taamaha hawiye hadaba maxaa lagu baabiyey hawiye waxa lagu baabiyey hawiyow hooyadii Soomaaliyeed baatiin
Soomaaliya dhanba Muqdisho joogto. War what the fuck garaara here? War ka kac meesha. War wake up. War haddii aan dadka bini aadanka ay damiirku ka dhinto waa sidan. War waxa weeye damiirkiina nooleeya. war waxa weeyaan ha eegina qowlaysato lacag idinku qaadata. war maanta hawiya la leeyahay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur waa hawiye waxa weeyaan la misal ahbar gidir Xasan Sheekh Maxamuud waa nin wacaysla soo wacaysla adama yaa la isku dhufanaya wacaysla habar gidir duduble sheekhaal bal hadda shaxda socota eega abgaal halka ka soo qaad waariya wagig wa triangle wa triangle wa one wa two wa triangle yaa waxaan ay ku soconaya war maanta waxa weeye waa dhalinyaro wax dhimanaya war waa xoog beesha hawiye maxaad u tiraahdaa xoogga dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waa ay dadka Soomaaliyeed dhinta saaka wax la wada aasaya waa hawiye nin isaga qaba ku jira oo dhaawacay isaguna oo dal mar la yiraahdo xalaaliyo waxa kala geerida waa hawiye waxalaaliyo waxa dhimatay waa hawiye waxalaaliyo waxa baabaaya waa hawiye waxalaaliyo waxa la xasuuqaya waa hawiye war hawiye goormaad dhiigan iska dul rogi war hawiye goormaad calankan dhiiga qaba tuuri war hawiye minaad waalan tahay oo aqligaagu waalan yahay war ma adigoo shalay lagu xasuuq war ma adigoo ninkii ugu horeeyay la dila salaad gabeeraha uu ka dhintay war ma adigoo dulmi ku jiray muddo ka badan 30 sanadood oo dagaalamay oo dalkaagii nabad ka dhigay ayaad haddana tiri walaalayaal kaalaya unugu Soomaali aan nahay unugu walaalaan nahay unugu caasimadii aan nahay ummada Soomaaliyeed unugu hanoo timaado calanka Soomaaliya muqaddis waaye war maxaa adiga ku diiday calan war maxaa adiga maamul goboleed ku diiday war maxaa maamul goboleedada u kici waayeen war maxaa galmudug baad leedihiin hawiyowe maxaa galmudug ay dawladu noqon weyday war waxa weeye lama ogola war lama ogola nin hawiya inuu cagaa ku istaago war leedin ma ogola hawiyow daarood baad shalay rideen haddana ma daarood baad dooratay markaasuu xabashi idin keenay markaasuu BM idinku garaacay markaasaa la idinku guryaha ka baxa carruuraya maatada kala baxa oo xagaan u baxnaayo aad bixi weydaan dabada la qatay waa laga soo waaday xabashidii markaad ka adkaateen Afrikaan bay idin dalbadeen Afrikaan bay haddana habid ku soo siiyeen Afrikaan ka baad ka dal ayad ka adkaateen wuu iscasila Cabdullaahi Yuusuf oo carar يودوني معودوني عبد الله يوسف انت انو حمر قارسيو واحد كلام دوني معودوني انو حمر انت اكو بابيو وصبح دانو لبننا هويا با دورتين شيخ شريفيو حاجه الشيخ محمد لبدو ميل بيدين قارسيو لبدو نولل بيدين سمين وصبح دانو هل كان هويا وحدين قبل لها دوران لهيدين او اد ديق سو ييلي لهيدين oo aad ficil sameyn lahaydeen ayaa farmaajo oo kiriirka waalida qaata oo ay ku ajisma garaysan tahay geeridii adeerkii inuu suuli ku dhintay wariya oo ay ku ajisma garaysan tahay xasuuqa hawiye ayaa dooratay maxaad ka faa'iideen qarax iyo diyaarad baad ka faa'iideen diyaaradu raaco iyo qarax baad ka faa'iideen waxaana daba anigu idin leeyahay waxaan anagu idin leeyahay war runta isu sheega Soomaali waa Soomaali laakiin waa kala Soomaali waa Soomaali oo waxa kaliya dhimanaya waa hawiye xamaray baray xamara loo tukado hooyada loo tukado hooyada loo tukado xamara loo tukado waad ku leedahay ma dulmi baa lagu tukadaa ma ummad masaakiin oo maalin walba lagu kibriyaa lagu tukadaa war dadka qiira jabaanta ka daaya oo dadka beenta ka daaya oo dadka runta u sheega dadkan damiirka ka dhintay ee damiirkooda nooleeya oo dadkan qalbiga laga dilay oo waa la abiyus gareeyay
dadka runta u sheega oo waxaad u sheegtaan cidda dhimanaysa inay hawiye tahay uguna dhaarta hawiye inuu caasimadda isagu leeyahay ugu dhaarta hawiye inuu caasimadda Soomaaliya isagu leeyahay oo dadka kale ay marti yihiin maxay idin diiday yaa ma waxaad maalin walba xaadhaysaan dhiigga hawiye ayaad gogasha u xaadhaysaan ma maalin walba muqdisho sidan uma yeelan muqdisho qaraxa xaq uma yeelanin waa caawiye biri farmaajona waa aamuslaanaya saa dambe khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo sii kici waa shan qaraxo kale waa maalin kasta oo dawladdu isqabsato waa qarax وسيو مدى لو جهوريريو وسيو مدى والهوية والدمان واي هوية والدمان واي هوية دارو دوكم تلقى للنور وحان هما او حقيقة او اردو تاي هوية انو يهي ضد البضن هوية انو دبر يهي واي هوية هدانو دبر هين وما دول قاتين لكن دبرنمادنا نعسنمو ku darsaday hawi nacasnimad ayuu ku darsaday dabarnimadii waayo war culimay leeyihiin reerkani war uqaal bay leeyihiin war siyaasiyiin bay leeyihiin war dhalinyaro aqoon-yahana bay leeyihiin war miyaa la waayay tirada war horta maxaynu ku dhimanaynaa war maxaa la inoo qarxinaya war in magaalada inaga ale ninka halkan qarax la soo galay halkan la soo galay dadkeena doonayeen inaan leeyno waxaanu qarinaynaa meenu sheegno maynu qabanno war ninkanu ka shakino maynu ciidanka ugu yeedho ilaa sidan waa ku dhamaanaynaa maxaa qofkii ku dhacay hadda ninka sheegtid oo ninka loo yimaado isla caawa lagu qarajin oo kale soo dhiman maysid ilaa geeridaadii halkan oo aad arkay sidoo socota ayaad ka aamustay soo kale dhiman maysid dee markaa kolleba dhimo oo dee si xalaalo u dhimo waxa weeye markaa soolo ninka la yidhaahdo haddaad leedahay amiir ninka la yidhaahdo ee somalilanderka ah ee cunsuriga ah ee dadka soomaaliyeed ku jeedi ama dadka soomaaliyeed waxaad tidhahdaa injineer amiir ayaa qaraxii ku farxay walcayaadu billah ilaahay baan ka magan galay inaan qof Soomaaliya dhigiisa ku farxo ilaahay baan ka magan galay damiirkaana malihi laakiin adiga damiirku wuxuu ku siiyay inaan ka xiniyo badanahay oo aan ka raganimo badanahay ninka lagu mashquulaa waa nin cunaha idin wada qabtay haddii aad tihiin dawladda nabar iyo naxdin oo idinkaga wada xaariyey oo qiyaamihiina kariyey oo waxa weeye idinkoo qaawan laamiga idin mariyey inaan ahay waxa idin cadaynaysa maanta waa dabcasr wadaahir calisu waa soola bidaar anu bidaar malihi solo anu timaan leh adu bidaar baad leedahay daahir ya shams baad anu bidaar malihi anu timaan leh waan xirtaa anu do you understand wariya aniga waa still way laakiin adigu yaa dameer nuclear baa kugu dhacay aan sameeyay Soomaad garanin waxaan markaa kuu sheegaya soolo bidaarow ciwaankayga soo samee waxaad doonaysa ku soo qor anigu waa bari horaan iska daayay qof magacayga samaysta oo wax ku soo qorqora bari horaan iska daayo dadku markay soo diraan waxaan ku dhaaniyo orda ciwaanada eega yadana qof walba profilkaygu eega laga waxaan arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo kumanaan ah oo igu soo darsaday oo qaari weydiinayaan ilaahay arrintan maxay tahay qaar caytamayaan umada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay war hubsiima hal baa la siistaa qofka Soomaaliyeedow anigu hal magac baan isticmaalaa amiir baan isticmaalaa kaliya ka nuclear-ka Soomaaliland garan iyo amiir Karbashna waxa igu jira 430 qof oo waa family-gayga inta aabahay dhalay iyo adeerkay wixii family-gayga ayaa igu jira waa 450 gebigiisu Soomaad garan
كان ووذا فاملي كاننا وكان أمتك لهذا سومات قراني وعنا دمكو شيء صول بدار وما تو حلقة ربع إلى الحقيقة دول استكتوا الفرماتة كتير هذا وحدتك هوية كل ليس شيء إلى الفرماتة كتير هذا نكعيدك النساء كم ده فهد ياسين حالة صدري شيخ علي دارا ما أنت صاحل يا الشباب إن أنا الشباب شقا كلهين إن أنا الشباب فلك فوحوش لماذا أردين إن أنا استمينين نكي حالة هذا الشباب تكدكتين تصوفر يسيسين وأنا عيدك النساء شقية وأنا نكمل ده بورقاد ده نكي فهد ياسين ليناو سومات قرن نكي فهد ياسين ليناو بورقاد ديسة أيو كمدي فيديو من دمانتي وحنا تقعد سنة أنتي نكوتشرت أفرتها بقولها كوتشرت هنا تشارك رئيسان أدقار سيسان قف كستا أو صوماليا أدقار سيسان قف كستا أو صوماليا أو إسله ورنك ما حقول عاي صار بدارو واحد يكرد يسمو يعني أما واحد يكرد ما يحوي مدعان هذا إسله ذي نكان ومدى الصوماليات كدر أو مدى الصوماليات كهوركان ورأنيقا ماها كاسي أنيقا ماها سومات قراني أنو meel kasto aan joogo meel kasto aan ku sugana anigu waxaan ahay nin naxariis badan ilaahay baa naxariis leh waxaan ahay nin qalbi fiican oo qalbigiisu xariir yahay oo qalbi dahaba leh oo qalbi waasac leh qalbi aad u ballaaran oo waasac baan leh oo cid kasta qaadi kara oo qof kasta oo Soomaaliya u damqanaya ayaan leeyahay waxaan leeyahay dadnimo ka badan taada kun iyo kow jeer ka badan taada waxaan leeyahay damqasho ka badan taada ayaan leeyahay laakiin anigu runta kama bayro Soomaad garanin runtu waxay tahay inaan anigu qadiyad leeyahay calanka buluuga aan nacabahay cidda xukuntana aan nacabahay oo waliba aan reerka hawiye la siinahay calanka oo aan reerka hawiye habeen iyo maalin ba kula taliyo war calankan dhiga war calankana waa dhigi aba dhiga war calankan waad aragteen fool xumadiisa iyo cawaaqib xumadiisa dhiga war calan barakaysan qaata war isu taliya war tashada war ka kaca war dadnimo yeesha war caruurtiina geerida ka joojiya لكن من نبعي ومدى الصوماليات ريركا دارو اللي يراهدنا رنتانو الشيغة وايو وريركا لباتن إيا لبادي سنة ودن بيسي ديقا هوية داديني دارو الوحو عاديستي إنو ديقا هوية سيستر بيبايسان وداديو شالايتو مركا يسكو دلين هالكن قالك عيا ماشا حقان كعيكتا مريحانك إيا لفيرو كميدا هبر قدرتو حبشي بعد الضلبتين حبشي أيادو الضلبتين إن الديانو أيوها أم شارتينا ننكي الضلبي حبشي ده أم دحوينا بدلان سكاش الرحي إن الديانو أيوها ننكي حبشي ده كويري نمان أرقاق حساه أيا سوق على هالكن أيان علينا عليكم السلام سودو سوما ذنكرا ميادو كلا هدين هوية سمي سكين راعي هبر قدر سمي سكين راعي ورلف يرى هبر قدر كمده أيام الريحان لف كمده لا دقالت من الريحان ودن إيا دارو دن باي سكو تغي حبشي باي ضلبتين حبشي أيضا ضلبتين إنا عيار تعالبوها نيكا لبدا ديارو هم كسوري عبدوا كسوري وريا عبدوا نيكي كاني نيكي طلاعي ككعايدة هيي إن عيار تعلبوها هداك بحيطة دميرك هوينا محولي ونوغو صومالي الله واي إلهي نبدي واي هداك وإلهي مهدي الله واي هكو تشريني ورانوغو صومالي الله واي هكو تشريني ورإلهي كبر هويو إذا دي العذابي إلهي دوكو عذابي طاروتكو كدلية دين عسربي كو كدلية
aduu sudigan balaadimirka noqday doofaarka waxa loo cadaabay waa ficil la'aan daaroodna haddaad ficil u yeelan weydo ilaahay wuu ku cadaabaya ilaahay waa ku cadaabaya markaa damiirkiinu hadduu dhinto hawiyow dee idinkaa dhibaatada isku haya hadda eeg idinkaa dhibaatada isku haya hawiyow idinkaa isbaabiinaya ilaahayna waa idin cadaabaya ilaahayna idin naxariisan maayo waa idin bay sumayd naxariisanaysaa war ma waxaad garan laadiin war nimankan daarood meel iska saara war nimankan daarood ee aad dhulkiinni siiseen ee martida idin ahaa ee kursiga baarlamaanka xabadda ku lahaa ee maanta aad aragtaan waxay idinku samaynayaan ee calankan xaaraanta ah ee qurinka ee dhiigyacabka idinla dul taagan iyo dhiigyacabkan maanta aarsanaya ma iska kiciyaad garan laadiin ma iska kiciyaad garan laadiin aawa dhul hawiye maanta isagaa martiya hawiye maanta isagaa bilaa dhula hawiyana caqli xumo wuxuu kaga daray waa lo dabadeed baasha looda la yidhaahdo haddaad maantaba dhegad la dhacayso xanaaqi mayso haddaad biyo kulul qaado ku shubto arladaa waxa jooga dad ha noqdo xoola ha noqdo bahal ha noqdo labadaa gees bay ku qaadaysaayo dem arladaa waa baabiinaysaa jiingadda waa burburin gidaarka waa isku qaadi ilaa iyo intay naftu ka baxayso hawiye waa sidaa waa musi dhabar ku dhigan gig iga rog meydka gig iga rog dhaawac gig iga rog hablaha la kufsaday gig iga rog sida loo rogayunbu marsaa u kacaya balaaya kugu kacday way hadduu kacana qorigunbu qabsan war balkada iyo xaggan u celiya qoriga habartaa maa meesha joogta habartaa maa meesha taagan war maya ilmaada rayaan war halka waxa jooga odayaal yeesamo hadeeg daarood le maaha war maya ilaahay ka baqa war waa masaajidka fulinimo war yaadhaheen war walaalayaalow war ilaahay ka baqa subxaan allah war walaal hawiyow dabeetana markaasaa kuwan daaroodkuna masaajidada wada galaan laa ilaaha ila allah kulli nafsin daa'iqatu lmawt inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maalintaasaa mikrofoonada boosaaso iyo garoowe iyo meel kastoo daaroodku dego mikrofoonada maalintaa la furaa soomaali laa ilaaha ila allah waa walaalo dhibaatada hala joojiyo ummadda soomaaliyeed hala dhex galo beesha caalamka waxaan leenahay fadhiga ha laga soo kaco waa maalinta keliya ee hawiye heryada tuuro ee hawiye fadhiga ka kaco ayay masaajidada mimbarka wada fuulan maalintaasay wadaad noqdaan daaroodkuna maalintaa ayay subxaan allah laa ilaaha ila allah allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar war soomaaliyey war cuqaashiyey war odayaal maalintaas maalintaasa ilaahay yaqaana laakiin inta ka horreysa shalay buu farmaajo wuxuu yidhi intuu garoowe soo istaagay meeshaanu ka dhiman weynay buu yidhi haddii aanu daarood nahay waa garoowe meeshan la badbaadisayna waa garoowe labada dhinacyada labada daraf waxa dadka naga xigaana nolol nooma ogolaadin waayo waa isaaq iyo hawiye war ma beentayba hawiyo ma beentayba ereygaa inuu yidhi inuu daarood ka dhiman waaye oo daaroodoo dhina aaminsan yahay inuu daarood ka dhiman waaye puntland soo wax idinku dhacay maaha maalintaa daarood reerka la yidhaahdo laba meel wada taagan lama arko maalinta hawiye saa u kaco hawiye kugu kacay waa libaax kugu kacay oo kaa hor yimi oo aabbaha kala wasay markaa daaroodow sidii libaad webiyada isku guri doontaan oo aad nigsaanta ka carari doontaan oo idinkoo qaawanaad laa ilaha illa allah carari doontaan soo maad garanay laakiin waxaan idiin sheegaya haddii maanta shirbu daarood ku baaqay maxaa laga tashanaya 30 sano ee soo socda sidii hawiye loo leeyahay wallahi ina wax kale laga tashanay waariya
والله بالله تالله إنا وحكا لك تشنين سوما دانكران وأنا دوان أقول يا ورهويو ورانك ولا أنك ولا ليدين بارونا عيل دين ما قبنو على دين ما قبنو على الحماي دين ما قبنو أنا وهدانو عندنا عبنا هاي دارود بنعبها يا نو ولا بد دارود قيبة كم إذا بنعبها أو كوا مجرمين تأه سيدا من ريحانك أيام ما شرتانك أيام آذو نعبها يوحي اللي دقي آذ بانو نعبها وايو وادلك الصومالي كدقي ويدي وادلك الصومالي ألقاك لقاي وادلك الصومالي كفريسان لاده وادلك مالك استدي باتذا كوضا هذا الصومالي دان كراني لكن أنا هوي ويدنقاه دباتدود وانا عروضه مرمرك قاركود بان سواريا عيدان كسيه هذا دوق دارودك عقت مريسيدي والله يا بالله waa nabad ka dhigtay marka bal hawiyow aqli xumadan maalin walbana aqliga la idinka badanayo social media fahme anigu waxaan idinka kaliya idin hadli kara ee daarood idinka celin kara idinku waad baqdaan ifar xitaa waad ka baqdaan social media bal orda ninka hawiya eega nin hawiya uu haysta social media nin hawiya ayuu haysta hadduu nin hawiya ka bayro nin madaxweynaha uu qabsanaya al daaroodi oo madaxweyne kuma dhaco inuu reer daarooda si sax ah u qabsado ku dhaado idinka dhibaatada wada idinka dambiga ummadda Soomaaliyeed wada oo uu ku cadeeyo oo runta u sheego kuma dhaco amina muuse weheli gamba cad bixinay ilaa ya Soomaaliya adduunka dawlad isku taagto gambada cas dhigi may maalintii farmaajo la doortay gambada cad dhigta asaydi maalintii ba dhigta meed asayd dama ku aragteen ina muuse weheli asayd damba meed aragteen meedan arkay maxay asada u dhigta dadkii gumaysan jiray baa yimid hawiya mar baa la gumaystaa 10 sano 20 sano 30 sano ayaa daarood ku gumaystaa dabeetana inta gumaysiga ku yeelan saddex jibaarkeed bay hal mar ku yeelan iyaguna hawiyu waa dad ilaahay naga shartiray oo cambuuladooda siday maraqa ugu dhuuqayaan ee cambuuladooda ay muus isugu cunayaan ee cambuuladooda ay macasare isugu cunayaan ayaa waa dhimanaya nacalaabi ku yaalo u dhintay ku leeyahay bal xal eega nacalaaba ku yaalo meed ku dhacay soo qaban ku leeyahay nacalaaba ku la dhacay laga daabu ku leeyahay waa sida naxariis oo ka guuray waxaas bala naxariis ma noqdeen maalinta dambu ba kici baalkan ma qabsantay تدبا شركة هوية بيكام بريدي والله تدبا شركة هدي قرقة بيكام كالون ديبو إلهي مقع عيسى كل دارتيه حتى قرقة تشيدن مايو هل غينا قال لها تشركة أنا أكو تشيدن أيو إنك هوية تدبا شركة قرقة بيكام كاه صدح ذا كن أحب للد بتاعيه يقول لا تشيدن إنك خير وريرك كليه Soomaaliya bar hore la qabsan lahay reerka laga qabsan waayo waa hawiye reerka dhamaan waayo waa hawiye maanta waxa la marayaa hawiye dhakadii u dambeysay baa loo degayo waxa dumarka laga laayo si aan hawiye uga dhalinba ilaa balaayadu waynu leynaynaa dhamaanba maayaan maxay imka la sameynaya in dumarkii hawiye la laayo yaa ka dambeeyo daarood baa ka dambeeyo aniga runtii dadku igu nacabiye runta laygu nacabiye runta ayaa laygu nacabiye oo laakiin mid baan u joojiyay xaway maanta dumarka la leynaya ee kufsiga ku bilowday iyaga directa u geysay laakiin maalintii inta yar la kufsaday ilaa inta yar la kufsaday ay Soomaaliya dhaho alla inta yaraday aga lagu kufsaday lix iyo afar iyo laba iyo 10 dumar ah oo Soomaaliyeed oo hooyooyina oo biriskooda carruurta u soo doonay ayaa laamiga la dhigay makaadasheen bakooydin hawiyo makaadashay habliini bay haayeen makaadashay ilaa inta yar qadarkii Ilaahay baaba ku yimi waa la kufsaday waaba kufsi waa wax xanuun kulul waa is og yahay daaro nimankii inta yar kufsaday waa la garanaya
هدي الرول الشيء يا ولا كاني لها والله لا أسلها ودقنا يقانان إذا وحبك قبل ما يصو ورمر خينك مقدشة شوقة وسويو إن أنت قرأوا ولا تي قرأوا لو كوف صدي أتيك لا جريوتي لبد بواميتي لبد بس حنو كل بلودري معاتن تكلك السريسي معاتن تكلك السريسي ميانا تنا هويا قبل تاهين ميا عرور يرير أول بتشركة يسنة كي يصدق البلد وير يهي دمر كي ماشى كل انتي متبع أمور هيد وافرتك كان كبحين بل علمه أنا فرتك كبحين هويا دي لامك حبض لك أقول نفتك ورما ميانا كحنو بندين نتير يا محايدك الدمير كذا كقاضي يا محايد الدمير كذا كقاضي وبالله هسه كن عاد أنا مرعزو قول كل حماية وحنا كنا عسكر علاقاتها نبغى هلا لوري شريو نبغى هلا عفول حماد هذه بقى أي واحد نقطة فول حماد كتير أوي وهنكون فرح سنة وايو مرقد مقدشة تكتي أو دار دك تقرح كوهايو واريا وقرنين ضرابها ويقانش هذا شمال لك عرّ فتحن هذا كنا كوكتال وايو هوي النبضة إن هذا تكتابه أو ولا لا ضايع سيده هرجسة هذا كنا نولد بدو كنا نولد سو ما أذكر مجنون باتهايمات حتى هوي مجنون متي تارد بد مجنون نقط هذا وحير كقاطع علاقاتيو هذا هوي وقوي سويد إن علاقاتها مركز دارود وهيسيس هذا هوي وقوي سويد هوي كل الشيء هوي ولا لا ضايع مقدشات وقتها ما نقول بواحد كده عيوة ركتاي كمان قصة دبعتها هوية كمان قصة إن مصيبة بيش هوية هايستا كبر كبيش هوية هايستا يا لو بعتم حال لودري شمال لا درهم بلودري لو بعتم دارو ضو تقانا لقنا الله ملأ ميل اللي ما تقال يساق يا هوية بس كسيبها لودري كسيبها لودري دارو ضو تقانا دارو بيت كتير لاقي صدق حرار بكاش اسمه جرسية ويساق يا لول بعتم يا هوية لول بعتم وكل علاين نمعان فوستو نمعانو بالرقو ما قعيما ما مليون بحسي بالرق أدوك كونا سي نمعان بالرقو معانا ويا وقصوا يسوي سياما كالعشون ينادر كالعشون ناسا أرضو ميسك لنا والله ناسا دادارو ميسك ناسا لنا عيادا سيدي خير كينيو هلقاس كفرش عشوت ينام باتاي نمعانو هويا كاقباهن هس دمرك الصومالية مقدشة لغو حسوقيو أيا كاقباهن هس يقول لغو دلياتي هذا هويا واست اللي مقدشة توقتها لغو دليا والله تنت برقع يكوكو جرته إنا دارات كواست دارات كين أدو هست شو ما تقراني وحنا لغو يدل ليا وريالين أنا المنورية نحذين حسبك وطني إيا النورية نحذين واسكمت أرنتا إتشنير أمير عوانا دي سلا سميستانا وعاوية والنورية نحذين إيا حسبك وطني وحنا رقاي مثل أحمد سمالي لاندرو له تذكر عيال قوياشا أحمدو أنا قايا أديقا أديك حنون قبا أديك عيل قبا وحال عيل قبا كنتاي أنا قوادي يقول شرته وادركتا إن أنا مقع عيقا آنو هين مقع وحلا صودقي وحتنو مدى الصومالية دي وكحهم ما هيدادك عيل قبا ياشاي إنا يسيدا وهالله أنا قونا ولا الليال كما فرح سنين قيريدين أحمدو دواعي بري أرقوتي
dawaco ayaa bari orgootay dabadeetana way carartayoo dawac bay weyday dabeetana ari bay aragtay ari ayay aragtay arigii markay aragtay arigii sidaa u eegtay orgicii ariga ugu weynaa ayay ku carartay orgicina wuu cararaya oo wuxuu isleeyahay waa ku cuni iyana way daba cararaysaa oo waxay isleedahay dubaysi siday isu eryanayeen ayuu orgicii ka galay guri iyo dad iyo ari buu ula galay dawacadii waa ka soo noqotay inta dib u egtaba waxaa ku tidhi orgacow nacas iyagu nacas ku dhalay bay tiri wax wanaagsan baa ku dhaafay adigu markaa axmedow taawa soo kalaa tahayoo intaad somalilan ka carartay oo aad maalin walba somalilan xumaanteeda ka sheekaysid oo aad soomaaliyana aanad waxba u haynin oo aad shaar soomaaliyana dhinacaa xidhatay shaar somalilanna dhinacan xidhatay waariya ayaad waxaad noqotay dawacada iyo orgacaa isariyaday ee isgaadhi waayey somalilanna waad gaadhi weyday soomaaliyana waad gaadhi weyday labadii midna waad gaadhi weyday markaa daddu waxay kugu jirtaa inaad jineer amiir iyo dee ma garanaysaa ninkaa libaaxa ee qaranka difaaca ee nuclearka ummadda soomaaliyeed sidaadana malaalahay dee hartaahangayde ma ihid anugu ma ihi aniga waa al nucleariya bahalka haddaan mar galka ka saaro waa madaxaad sheegaysaa wejiga haaraale waan kaaga dhufanaya war ma fahanti waxaan markaa ku leeyahay adeer camalkuuma noqonayso sawirkayga oo magac koobiya intaad saartaan aad ummadda soomaaliyeed ku tidhaahdaan bal ninkaa eega wada fircoon baa tihiin yaa wada fircoon ayaa tihiin laakiin anigu qof kasta oo soomaaliya oo i yaqaana waa i og yahay inaanu damiirkaygu nooc ahayn shalay bay ahayd ninka keliya ee social media ku jira ee nin oromaay uu qabiil u caayay ee ninkii oromada aabihii ku wasay waa aniga ha la soo helo nin kale oo soomaaliyeed oo dhiig soomaaliyeed leh oo dhiig aniga igu jiro kale leh oo soomaalinimo u danqada waluusan jirin anigu cusuli baana waxa weeye aniga warkaygu waa daahir ya shams anigu cusuli baana waxaan cusuli ku ahay calanka buluugga ah iyo cidda xukunta laakiin dadka soomaaliyeed cusur kumihi waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay kala joogto waxaan ilaahay idinka baryayaa weliba beesha hawiye soomaali iskuma jirto cidda dhimanaysaa waa hawiye waxba soomaali hayse saarsaarina soomadan garan isaaq dhulkoodii waa nabad daaroodna dhulkoodii waa nabad ogaadan dhulkoodii waa nabad ciise dhulkiisi waa nabad samarool dhulkiisi waa nabad allahuma gudabiirsi dhulkiisi waa nabad soomaali maxamed dhulkoodii waa nabad reerka dhibaatadii oo dhan loola tegey reerka la dhibaataynayo waa hawiye soomaydaan garanin haddaad adeer leedahay amiirow run ha sheegin waan sheegayaa haddaad sawirkayga u soo qaadanayso afkayga waxa ka soo baxaya oo aad og tahay afkayga waxa ka soo baxaya inuu farmaajo casilayo oo farmaajo kursiga ka qaadayo haddaad og tahay ma waxa ay kula tahay sawir aad iga soo samayso oo feega oo beena inuu aniga iga celin karo waxaan u baahanahay inuu aniga iga celin karo dadnimadayda inuu aniga iga celin karo meesha aan u socdo maya taas been baad u sheegtay soolow adiga daahir calisu lacag baad ku soo qaadatay iyo dab casar waalidiin oga laakiin nin aydan qaban karin oo amiir la yidhaahdo ayaa halka jooga marka dadka soomaaliyeed ha odhanina ummadda soomaaliyeed ha odhanina reerka hawiye ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado ummadda soomaaliyeed oo dhanna ha ogaato reerka hawiye hadhow daarood wuxuu ku sameeyo
soomaaliya waad ka qaban weydaan hawiye daaroode hawiye hadhowta wuxuu sameeyo soomaaliya masaajidada minbaradeeda ha fuulina soomaaliyay been baad isu sheegtaan been baad ku nooshihiin runtaad ka fog tihiin maanta masaajidada culimada ku jirta kuma dhacda inay ka hadasho dhibaatada beesha hawiye lagu hayo ma arkaysid caaqil ka hadlaya ma arkaysid suldaan ka hadlaya ma arkaysid malaag ka hadlaya ma arkaysid boqor ka hadlaya soomad garani hadda eeg hadhow laakiin hawiye markuu kaco ee wax iska celiyo ee daarood eryadu ee nigsaanta ka saaro ee kabaha ku gooyo ee sidooda ay daba weyn islaamiga wada dhigaan barqadha farshaqdo ay waxaasoo xabaduna dabaday kaga wada dhacdaay waryaah eed hadhow minbarada fuuli doonta laa ilaaha illa allah ilaahay ha laga baqo soomaali waa walaalo subxaan allah horumadda soomaaliyeeday cuqaashii meeye odayaashii meeye aqoon-yahankii meeye waxgaradkii meeye markaasaad odhan doonta ya markaa ayaad odhan doontaan soomaad garan marka waxaan idin leeyahay war ha loo duceeyo beesha hawiye ummadda soomaaliyeeday ha loo duceeyo beesha hawiye hadda daarooda ogaada o hawiye waa dhiiggaygi waa niman erira waa niman ila dhashay idinkii anigu waxba ismanayn aniga iyagaa ila dhashay haddaad ka xun tahay iyo haddaad ku farxaysaba aniga amiir baa la yidhahdaa alnugliyeeriya waxaan arkayaa ciyaalkii somalilandarka sheegan jiray ee labada calan xidhnaa ee xisbiga wadani ee aan iminka anigu xisbiga wadani ilaa qiyaamaha waan haysanaya 10,000 soolo la hadlo oo inantii u diro oo dabeetana inantii iyo soolo iyo intii kale waxaa isku yara geegeeyaanu war nugliyeer baa la yidhahdaa aniga nugliyeer baa la yidhahdaayo waa wadaya cidna ma daayo dowladdeedana wixii ka hor yimaada aakhiraan u dira laakiin anigoo ku hadlaya afka xukuumadda somaliland shacabka xalaasha ah ee dhabta ee reer somaliland inta dhiig iyo damiir kale waxaan idinka sidaa tacsi tiiraanya leh waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay waxaan ka baryayaa intii dhimatay inuu ilaahay u naxariisto inta bugtana ilaahay u boogadhayo anigu haddii aanu nahay ummadda somaliland idinkuma faraxsanin dhibaatadiinna hawiyow hadalka waa la kala saaraay hawiyow dhibaatadiinna kuma faraxsanin hawiyow walaaladayaa tihiin dhiiggayagaa tihiin wayna danqaysaa dhibaatadiinnu xanuunkiinu waana danqayaa waxaa dhici karta xanuunka laydinku hayo inaanu annagu lafteedu faragelin dagaal oo cad samayno oo aanu dagaal cad ku soo qaadno daaro annagu ma badhbadhno haddii arrinta hawiye halkaa ay ka degi weydo waxaa ballan ah inaanu dagaal qaadi doonno oo aanu ku qaadi doonno daarood oo aanu mar labaad ku qaadi doonno oo aanu 1991 dib ugu celin doonno oo ay dhici doonto haddii aanu iminka sida ugu dhaqsaan badan leh daarood muqdisho uga bixin dhammaan uga bixin muqdisho aanay dhammaantood dadkii ay laayeen dadkii laayay wada keenin aan dhammaantood aanay maxkamadda iswada geynin waxaa dhacaysa inaanu dagaal cad annaguna qaadan doonno ogolaan mayno shalayna maanaan ogolayn maantana ma ogolin in hawiye lala dilo mana dhacayso nin walaalkii dhiiggiisa maalin walba arkayaana ma fadhiyayo soomaadaan garanay marka waxaan leeyahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto gacan daarood baa dishay ilaahay jannadii ha geeyo kolleba waa u aari doonnaaye inta nool ee dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo wariyihii weynaa ibraahim aadan macallimow isna waxaan leeyahay ilaahay kaa badbaadiyey ayaa mahadda iska leh waxa kale oo sideedoo kale been laga sameeyey wiil ka mida wiilasha
soomaaliyeed wiilkaasoo la yidhaahdo atooraha beddel liido oo ah wiil ciidan ah oo inta badan dalkiisa wanaaggiisa dadka u soo bandhiga oo ay xalayto soolo bidaariyo iyo naagihiisii islaamaha ahaayee xashiishadoolayaasha ahaa intay sawirkiisa soo qaateen ay yidhaahdeen waa dhintay waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa ee inankaa tacsidiisa qoraysa inankaasi waa nool yahay waa caafimaad qabaa alla dilaa dhinta sida aniga sawirka beenta alla iga sameeyey ayaa isagana geeri beena looga sameeyey ilaahay unbaa ma dhinta ah qof waliba waa dhimanayaa soomaad garanin qof waliba waa dhimanayaa sawirkaa iyo ciwaankaa feyga ana anigu melihi shaqana kuma lihi beri baan ka ahay ilaah baa igaga sarreeya beri baan ka ahay dhiigga beesha hawiyana weligay ma taageerina maayo dhammaan waxaan jecelahay qof kasta oo soomaaliyeed fideogaygaas inuu dhegaysto inuu ummadda soomaaliyeed gaadhsiiyo waxaan kaloo idin leeyahay dagaalka aniga iyo soolo bidaar noo bilowday wuu socon caawana 9 habeennimo markay tahay ha inoo ahaato 9 iyo barhka ayaa soo gelaya saacadda yurub insha allah waxaa inoo ballana adigii aniga soolo bidaarow inaan nigsaanta kaa saara iminka waan isberi yeelayey beenta aad samaysay baan iska beri yeelayey laakiin caawa 9 markay gaadho taariikhdaada iyo adiga iyo dhaqankaaga ayaa bannaanka iman aqoonyahan baan ahayo bugaag baan qoraa intuu bugaagta librariyada ingiriiska sidoo marba laba u soo xaday uu guri ku urursaday aqoonyahan mise kuwa hawiye dadka hawiyana dad wax walba iska ogolaadeen way mood haddii aad tiraahdo nuclear baan ahayo diyaaradaha sameeya pilotki waay walle pilot ninkan khatar waay haddii aad tiraahdo anigu waxaan qolada samaysa maraakiibta badda ninkan engineer waay maraakiibta baddu sameeyaano haddaad tirahdid anugu waxaan nin sarkaal oo ciidan jananka gius ninkan nin loo galayo maaha ninkan generaal waay ya horyaa intuu bugaagis ka soo urursaday oo dabadiisa teediyey aniguba 2 kun oo buug baan hayaa ciyaalkaygu ilaa maalintii 3 jir ahayn inaan iskuul geynayay ilaa iyo maanta ilaa wixii aan buugu soo iibiyey ayaan hayaa wallahi maktabad dhan noqonaya maktabad waa waxaasoo dabadeeda geeyanaado xaaleeydano anu nila waryaa wayno ya caawa waynu sarkeynaa bal aqoonta aad leedahay aad ummadda u soo bandhigto ilaada amiir nuclear faraha la gale teeda kale mid waxaa tahay nabruud baa tahay oo fircoon baa tahay soomaad garanin yaa bidaarow waxaan kuu sheegayaa adigii anigu 2 bidaarood baan leenahay laakiin anigu waan xirana laakiin adiga bidaartu iimaanka alla kaa qaadiyo munaafaqaday kaa gashay marka labadana adiga bidaar leh anigu bidaar ma lihi soomaad garanin laakiin waxaan ballanino ah dagaalka inoo bilowday inuu dhulgarir kugu dhaco amiir baa la yidhaha cidina faraha ma soo gasho tan ninkaygan soomaad garanin qaranka somalilandna anaa u dhashay ma fahantay hawiyana anaa la dhashay adugu daarood kaa furanay imanka aad gashay balcaaw hayga kaa dhiciyeen soolow inaan kaadidaada kala ku shubo ayaa igu ballana adigoo qaawan oo sirkhaansan inaan caawa ku keeno waa igu ballan soolow adigoo hawiye caayaya oo hawiye wuxuu doono ka sheegaya oo la hawiye sidaa ha loo dilo ayaan caawa ku soo bandhigayaa soolay gabadha soolo la yidhaahdo saloolo waxaan kuu sheegaya aniga markaad isku kay doonato injineer amiir rushaag baa la yidhahdaa soomaad garanin ninna igama faa'iido daa'ir cali suban bere hore meel mariyey oo adiga kaa khatarsan oo kaa laandheeraysan oo nin habar gidira oo waaweynka ka dhashaya ma fahanti oo waxa weeye bannaan cad istaagay oo sare u kaajay ayaan halkaasanka intaan middi ka geliyey dhafoorka xagga kale uga saaray ma garatay nabruudow maanta laga bilaabana magaciisu waa nabruud iyo saloolo
أما سالو دي سالو سولا سالو وي محا سالو وي سولا سالو ما تقنن سالو waxa la yiraahdaa ariga xaarkiisa saala la yiraahdo سولا war wallahi magacaasa ba macaanba nabruud soola saalo waxaan ku leeyahay daahir calis ayaan shahaada ka xidhay adigana iimaanka ka xidhay soola saalo nabruudo soomaad garanin dhammaantii waan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dawladda caawan ka hadli doonaa dhiigya cabka farmaajo caawan ka hadli ciil qabaha ah dadka aniga igu la ciil qaba anigu ciil qaba meeyi farmaajo ciil qaba inta taageerta ciil qabayaala dawladda iyo nabar iyo naxdin ba ciil qabayaala Soomaad garan soola nabruud soola saalana waxaan leeyahay waano yacaaw dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed waa idin salaamaya meel kasta aad joogtaan qof kasta oo Soomaaliyeedow anigu kuba nabci wallahi dhiigaagana ma jecli geeridaadana ma jecli kuma farxo waxa weeye dhibaatada ummadda Soomaaliyeedna kuma farxo qofowna aniga niyadaada ha gelin wallahi anigu aabbaanahay ubad baan haystaa ilaahay igu deeqay ilaahay baa iska leh waan dareemi karaa aabbaha anigoo kale ilmihiisii maanta waayay waan dareemi karaa ilmaha anigoo kale ee waalidkii maanta waayay waxaan ku farxi karaa maaha waa waxa nabruud baa sameeyay waxa laakiin anigu damiirka malihi mana yeelan karo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed wixii sawirkayga arka iyo wixii qoraalka arka anigu shaqo kuma lihi bari baan ka ahay ilaahay bay iga tahay rabbi baa iga sareeyay malihi shaqana kuma lihi qof islaam baan ahay qof ilaahiisa ka cabsadaan ahay aabbaan ahay xanuunka dareemi kara dhibaatada dareemi kara allahumma salli ala muhammad dareemi kara aabbaha maanta wiilkiisii uu noloshiisa iyo mustaqbalkiisa ku naaloonayay waayay wiilkan nolol iyo mustaqbal lahaa ee ciyaalaha ee aabihii maanta waayay dhammaan anigu waa ka xumahay waa tacsiyadaynayaa tacsi tiiraanyala baan u dirayaa waxa weeyaan dhammaan intii halkaa ku dhimatay oo beelweynta hawiye u badan iyo cid kastoo Soomaaliyeed oo dad kaga dhinteen inta dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo waxaan idin leeyahay dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan gaadhsiiya fideowgayga qof kastoo Soomaaliya soola nabruudna caawan insha Allah is arki doonaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.